quraanka mesela qisaska ku qoran wax kamid ah hadaan tilmaamo ilaahay wuxuu tilmaamayaa fircawn oo qooqayo kibray oo si uu Muuse iyo Nabi Haaruun u jabiyo soo ururiyay aqoonyahankiisii uu arkayay cilmiga sixirka inay dhameeyeen aqoonyahankaasi markay fircawn la socdeen waxay ku yidhaahaa inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin wax ajar maleenay haddaanu ka badina ninka kan ها بو يدو مقربين تا كميتي يعني boqorka dunida dhan sheeganaya le mulku Misr iyo waxeeda oo dhan ana iska leh ayaa wuxuu leeyahay dadka muqarribiintayda aba ku biiraysa dhaqaale iyo waxa ka fakarina waa helaysaan laakiin markuu xaq u cadaaday xaqa waxay siisteen dhaqaalada iyo naftooda waana idin layn buu ku yidhi markay yidhaahdeen ilaahi baan rumaynay waxay ugu jawaabeen faqdi ma anta qaad inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya waxaad samayn karta samee bayda waxaad samaysaa wayna nadisho soo maaha nicmada tan weynideeda markay dareemeen waxay ogolaadeen inay nafta siistaan naftu hatta haday ka baxaysa inaanay marnaba nicmadaasi inay ku faraadaygaan oo aanay ka dhaqaaqin ilaahay quraanka qisasku ku tilmaamayo waxa kamid ah qisadii asxaabul kahf niman dhalinyaro ah oo boqorada dhashoodii ama tabaqada sare ka dhashay oo islaamay oo dabeetana lagu dhibay islaamnimadoodii oo ka doortay qusuurtii lagu noolaa inay god ku noolaadaan min alqasr ila alkahf waxay doorteen inay boqorada iyo dhulkay degan yihiin iyo nicmadan adduunyo waxaan oo dhan inay ka tanaasulaan waayo waxay rabaan nicmada iimaanka iyo islaamku inay u hadho sida awgeed bay waxay doorteen inay nolol god lagu nooliyay galaan god inay nolol weydiiyaan ama ay galaan waxa ilaahay quraanka kaga waramaya qisatu asxaabil khuduud daddan oo la xaaqay oo loo laayay diinta ma ka noqonaysaan oo ma yiri dadkii diinta fahamsanaa ee garanayay nicmadana intay leegtay waxay ahaayeen dadkii sida ugu mintidayay haddii aad hayso ama aad soo hesho diamond ka waa taqaani Soomaha almaas macdantan yara qaaliga ah haddaad diamond soo hesho xagaad dhigi lahayd guriga fadhiga ma iska dhigi lahayd mise waxaad geyn lahayd meesha ugu sayfsan ay ku nabadgelayso waxa laga yaabay lahaa xataa qasnada guriga ku taala inaanad ku aaminteen aad soo dhan lahayd arma loo dhacaa dabeetana bangiga iyo meelaha xooga loo ilaaliyo inaad geysataaba suurtagal ahayd waayo waxan baad qiimihiisa taqaanaa diamond kaad qiimaheeda taqaanaa sida awgeed ma rabtid inaad dayacdid dadkii diinta qiimaheeda yaqaanay saasay u ilaashanayeen oo naf iyo wax walba u siisanayeen haddaad se garan weydo diamondka haddii lagu dhibaad quraarad yaruun moodo crystal yaroo cadaad moodo dee waxaa laga yaabaa inaad ama tuuri lahayd ama meelaha iska dhigi lahayd waayo waxaanad aqoonin waxaan inuu diamond yahay laakiin marka lagu yidhaahdo waa diamond baad kugu soo degi lahayd ilaalintiisu waxaan uga dan leeyahay waxa dadka agtooda qiimaha ku leh bini aadamku wuu ilaaliyaa naf iyo maalba wuu geliyaa si kasta wuu xejin karo wuu xejiyaa dhulkan baad timaadeen dad idinka badan diimo kala haysta intee baynu ilaalinaynaa diinteenna intaynu u feejignay intee baad rabtaa ilmahaagu inuu islaamnimo ku dhinto Soomaalidu waxay ka fakartaa carruurtii waxa kan dhaqaale u sameeyo guriga u dhis waddankan ay joogtaan kuwa ugu timaadeen odayadii hore guriga uga tageen saaka la igu lahaa qaar guriga looga tagay la sheegayo waxa la yiri maalintiina way seexdaan habeenkiina way qayalaan ama way soo jeedaan baa la yiri dabeetana waxoogaa yaro kiro oo ay guriga ka qaataan hadduu se qofkaasi ka tagay lahaa qof iimaan iyo diin leh wala waanu guri uga tageen wuu xogsan lahaa ilmaha inaad guri uga tagto waxa ka qiimo badan inaad diin uga tagto
inaad dhaqaale u samayso waxa uga qiimo badan inaad isaga qof ka dhigto jira oo nool oo muslima hadduu qof muslima noqdo oo naftiisa ku kalsoon meeluu seexdiyo wuxuu cuno isaga raadacaysanaya adiga xilka ku saarani kaama xilka ku saarani waxa weeyaan falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi ibraahim oo u dardaarmaya carruurtiisii islaamnimo nebi yacquub oo markuu geeriyoonayo u yeedhay oo ku yidhi maxaa caabudaysaan aniga dabaday oo ay u sheegeen ilaahaad adigu caabudaysa iyo aabbayaashaaba ilaahay caabudayeen baanu haysanaynaa ambiyadu dardaarankay ka tegayeen wuxuu ahaa islaamnimo ku dhinta mu odhanin war xoolaha maxaa ka yeelaysaan reerkasaa u maamulaysaan daarihii sidaa odhan doontaan reerka ma ururin doontaan baabkaa uma bilaabin ee qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay inuu diin ka warramay haddaba hadday diintu agteenna qiimo ku leedahayna waxay noqonaysaa mid aynu ilaalinno midaynu naf iyo maalba dul dhigno midaynu dowrulcibaada meelahaynu ku cibaadaysanayna inagu lacagteenna gelinoo dhisno madaaristeenna inagu dhisanno nolosheenna ay ka mid noqoto aynu u fakerno haddiise diintu aanay qiimo lahayn waxay noqonaysaa si gaalku kuu qaado intaad meelahooda tagto inaad dafoorada usii xirxirato tila anigu diin shaqo kuma lihiye waxaan rabaa in yurub laygeeyo baabkaasi shaqo kuma lihiye waayo iyadaa kuugu qiimo yar iyadaa kuugu liidata galabta culamada idin wacdii doonta laakiin anigu waxaan idin xasuusinayaa oo keliya inaydan foqoro ahayn ee wixii dunida ugu qaalisanaa inay agtiina yaallo saxaabadii markii ay dunida ku faafeen bershiya markii dagaaladu ka socdeen xarbi alqaadisiya 30,000 oo muslimiina baa dagaal ku jiray iyo dad 200 kun ku dhadhow oo gaala ah dabeetana markii dambu ninkii gaalka ahaa meesha joogay wuxuu yidhi bal iigu yeedha nimankani waxay doonayaan 3 nin buu kolba mid yidhi halay soo diro waa loo diray wuxuu u weydiinayaa uu leeyahay warnimayo haddii meeshiinii dhulkiina waan ogo waa iska saxaariya meel qaraxee aan xoola idin siiya noqda xaggiinii ku laabta wuxuu weydiiyey maxaa idin soo bixiya dhulkiina idinka keenay dee wuxuu isleeyahay waxay odhan doonaan xoolaanu doonaynaayo waa meel abaaraanu ka nimi waxay ugu jawaabeen ilaahay baa na soo bixiyey waxaana naloo soo bixiyey inaanu dadka ka saarro addoonsigays addoonsadaan oo aanu u saarro ilaa cibaadati illaahi waxdah ilaahay inay addoommo u noqdaan cidhidhiga adduun inaanu ka saarno ballaca aakhiro u saarro diimaha kale cadaalad xumadooda inaanu ka kaxayno oo diinta islaam geyno idan waxay leeyihiin wixii ugu weynaa baanu haynaa nimanka caynkaa leh iyagoo dhowr bilood dagaal ku soo jiray ayuu ninkani wuxuu rabay inuu hankooda jabiyo dabeetana kaarbadka cas baa la dhigay sariirtii boqorkana waa loo dhigay nin ka midaa soo socdayoo wuxuu la soo dul maray faraskiisii yaraaye gaabnaa meesha korkeedii dabeetana barkimooyinku meesha dhigay buu xadhigga ugu xidhay faraska wuu soo dhaqaaqo waxay idhahdeen hubka boqorka loolama tago idinkaa ii yeedhay buu yidhi haddaydan rabin waan iska noqon doonaa yacni kaana yactazu binafsi inuu isagu muslimiyey ustaad ilcaalam inuu yahay waxyigii ugu dambeeye samada ka yimi inuu sido ayuu isu arkayay ma u arkayn boqorkan iyo qadifadiisa cascasi wax qiimaa inay leedahay 3 nin ka midina siduu u soo socday ayuu dee boqorka hortiisa alla fadhiistay oo laga hadlaaya sariirta boqorka dhinaceeda kaluu isna fuula markaasaa la qabqabtoo lasoo tuuray suu yidhi maan moodaynin inay addoommaysu tihiine waxaan idin moodayay dad siman oo dee diin haysta ee in badhna rabbiya sheeganayaan badhna dhulka la dhigayo maan moodayn idan waxay arkayeen dadkaasi diintu inay tahay wixii ugu qaalisanaayo iyagu sitaan laakiin xoole may wadanin waxba may wadanin waxaan filayaa ibnu jariir itabari wuxuu tilmaamaa madaa'in maalintay furteen muslimiintu markay madaa'in furteen caasimaddii meesha waxyaabihii la helay waxaa ka mid ahaa khubs yar oo si yaroo khafiifa loo sameeyey
dabeetana manaadiil bay moodeen ragga badh ka mid iyo faraha iska mariyeen baa la yidhi yacni xadaara halkaasi ka joogeen inay faraha iska mariyaan cunno wax loogu talagalay laakiin haddana waxay ahaayeen dadkaa rumaysan waxyigii ugu dambeeyey ee ilaahay xaggiisa ka yimaada inay xambaarsan yihiin aniga markaa weedhaydu waxay tahay war foqoro ma tihidin foqoro ma tihidin diintii rabbaa aaminsantihiin oo sidaan dadkaa u timaadeen baa foqoro ah oo diin la dadkaa u timaadeen baa caydh ah oo aan waxba haysanin dadkaa u timaadeen baa aakhire moog idinkuna habbi'ina oo diintiinu yay xumaanina ilaashada